bisha barakaysan ee Ramadaan waxay leedahay arrin gaar ah oo faa'iido badan. Arrinta gaarka ah waxay tahay in qofka bisha gudaheeda uu awood u yeelan karo in uu wax faa'iido ah kala haro. Faa'iidadaas oo noloshiisa laga yaabo inay bedesho. qof walba oo naga mid ah wuxuu leeyahay hal abuur iyo xirfad iyo farsamo iyo aqli iyo fikir. sidoo kale wuxuu leeyahay ceebo iyo waxyaabo caqabad ku ah naftiisa inay hormarto. bisha barakaysan waxyaabaha ay leedahay waxaa ka mid ah in ay marka koowaad tahay 30 maalmood. 30 maalmood marka aad wax joogtaysid ama wax aad samayn jirtay in aad joojisid waxa ku sahlanaanaysa in aad sii wadid. cilmi baarista casriga waxay sheegtay qofka raba in uu dabeecad cusub kasbado ama mid hore uu joogtayn jiray joojiyo waxa uu u baahan yahay 30 maalmood. haddaba sidee baa faa'iidadaas aan sheegay Ramadaanka ugu dhex abuuri karnaa? tala ahaan maadaama hadda soonku maanta wuxuu maray 4 waxa inoo haray 26daas bari waxa isku dayaynaa ama aad isku dayaysaa ama aan isku dayayaa in aan hal dhaqan oo aan leeyahay oo cusub oo horumarkiisa cidaya aan joogteeyo ama hal qodob oo caqabad igu ah oo aan samayn jiray aan joojiyo. haddii aan maalin walba qodobkaas isaga ah aan hirgeliyo waxa ii sahlanaanaysa Ramadaanka kadib in aan sii wado sababtoo ah 26 maalmood ayaan arrintan ku soo celcelinayay. naftayduna waxa ay u helanaanaysaa in ay qodobkaas ay joogtayso. haddii aad jeceshahay in aad aroortii jarmaatid, haddii aad jeceshahay in aad wax akhrisid, haddii aad jeceshahay inaad wax qorshaysid, haddii aad jeceshahay inaad jimicsatid, haddii aad jeceshahay in aad koorso ama barnaamij cusub bilowdid, haddii aad jeceshahay in aad xirfad cusub baratid, haddii aad jeceshahay inaad ganacsi cusub aasaastid, isku day in aad maalin walba aad samaysid wixii laga rabay oo aad joogtaysid maalin walba oo ka haray maalinta soonka. taas ma saameynayso cibaadadaada iyo quraan akhriskaaga iyo taraawiixdaada iyo soonkaaga iyo salaadahaaga, laakiin 24 saac waliba saacadaha aad soo jeedid isku day in caadadaas aad develop garaysid. maalintii waxaa laga yaabaa 14 saac inaad soo jeedid. 14 saac waxa aad rabtid inaad kala hartid oo aad joogtaysid joogtee. waa fikrad la tijaabiyay oo heergal ah oo dhaxalgal ah oo biyo kama dhibcaan ah. waa ku mahadsantahay inaad soo gaadhay dhammayska muuqaalkan. waxaan rajaynayaa Ramadaanka in aad fikradda practice garaysid ana arko adiga oo ku faraxsan guusha aad ka gaadhay himilada ama yoolka aad degsatay. soon qaad wanaagsan.